ciidanka xoogga dalka Ogaadeniya waa daljiraha u taagan danaha shacabkooda waa difaaca dalka hooyo xoogga dalka Ogaadeniya hoggaanka gaashaandhigga ee jabhadda wadaniga xoreynta Ogaadeniya naftii hore Sheekh Deeq Maxamed ayaa waxa uu ka qayb galay shir ballaaran oo ay soo abaabushay jaaliyadda Ogaadeniya ee wadanka South Africa shirka oo ay fadhiyeen odayaal dhaqameedka iyo waxgaradka bulshada Ogaadeniya ka soo jeeda ee ku sugan daafaha wadanka South Africa ayaa hoggaanka gaashaandhiggu waxa uu ka jeediyay khudbad aad u diiran oo dhinacyo badan taabanaysay una kaga hadlayay guud ahaan xaaladda wadanka Ogaadeniya marxaladda cusub ee uu galay iyo dagaalada isdaba joogga ee ciidamada wadaniga xoreynta Ogaadeniya ay la beegsanayaan saacad kasta ciidamada gumaysiga Itoobiya ee si liicaya barnaamijka waxaan ku soo qaadan doonaa warbixintii uu hoggaanka gaashaandhigga jabhadda wadaniga xoreynta Ogaadeniya ka jeediyay shirkaasi anagoo idiin soo koobi doona iyo sidoo kale waliba su'aalihii ay halkaasi ka weydiiyeen hoggaanka gaashaandhigga qaar ka mid ah ka soo qaybgalayaasha shirkaasi kuwaasi oo si waafi oo tafatiran u qanciyay hoggaanka gaashaandhigga ee jabhadda wadaniga xoreynta Ogaadeniya naftii hore Sheekh Deeq Maxamed shirkani oo ahaa mid aad iyo aad u heersareeyay jawigiisuna uu aad uga bedelaa shirarkii hore ee ay ka soo qaybgali odayaasha iyo waxgaradka ku sugan wadanka South Africa ee ka soo jeeda dalka Ogaadeniya ayaa waxa si qiiro iyo xiisageliyay kadib markii si toos ah ugu soo xidhmay khadka teleefanka hoggaanka gaashaandhigga ee jabhadda wadaniga xoreynta Ogaadeniya oo ku sugan jiida hore ee dagaalka lagaga xoreynayo wadanka Ogaadeniya gumaysiga Itoobiya kadib soo dhaweyn ballaaran iyo sacad isqabsaday guud ahaan hoolkii shirka loona sameeyay hoggaanka gaashaandhigga ee jawxo naftii hore Sheekh Deeq oo dad badan muddo dheer ay ku taamayeen inay mar maqlaan codkiisa taasi oo ka qaybgalayaasha u ahayd farxad labaad maadaama hoggaanka gaashaandhiggu uu si toos ah uga soo hadlayay jiida hore ee dagaalada wadanka Ogaadeniya lagaga xoreynayo ciidamada gumaysiga Itoobiya shirka oo ay ka muuqatay qiiro wadaniyadeed oo aad u heer sareysa ayaa waxa la gudagalay ahmiyadii loo qabtay oo ahayd in lagu lafaguro xaaladda wadanka Ogaadeniya marxaladaha cusub ee soo kordhay iyo sidii ay guud ahaanba bulshooyinka reer Ogaadeniya gudaha iyo dibadba ula jaanqaadi lahaayeen isbedelada siyaasadeed ee soo kordhay iyadoo halkaasi ay khudbado muhiim ah ka soo jeediyeen odayaasha iyo waxgaradkii kala duwanaa ee safarka dheer u soo galay si ay uga qayb galaan shirkaasi hoggaanka gaashaandhigga ee jabhadda wadaniga xoreynta Ogaadeniya oo ka mid ahaa ka soo qayb galayaasha shirkaasi si toosan ah khadka teleefanka ula socday ayaa waxa halkaasi uu ka jeediyay khudbad dhinacyo badan taabanaysa taasi oo uu guud ahaan kaga warbixiyay xaaladda guud ee haatan uu marayo wadanka Ogaadeniya howlgallada ay ciidanka wadaniga xoreynta Ogaadeniya ka wadaan gudaha wadanka Ogaadeniya adkaysiga shacabka reer Ogaadeniya ee gudaha ku sugan iyo waliba isku xidhnaanta qaybaha kala duwan ee bulshada wadanka Ogaadeniya isagoo oo hoggaanku intaasi ku daray in halganka Ogaadeniya maanta uu marayo meeshii ugu sareysay ee uu abid gaaro hoggaanka gaashaandhigga ee jabhadda wadaniga xoreynta Ogaadeniya waxa uu ku booriyay ka qaybgalayaashu in ay laba jibaaraan waxqabadkooda si loo soo afjaro in gumaysiga Itoobiya uu sii haysto wadanka Ogaadeniya ugu horeyn hoggaanka gaashaandhiggu isagoo shirka u jeedinaya mahadnaq ballaaran ayaa waxa ka mid ahaa hadaladiisii يا دكتور مهندسين أوياش وعندكم سلامية أنا صور وريني مدام وشركة شفتان كنا وعدون كأني دجال بعنا كسرة يمكن كنا يمكن كارا سميك بين كنا عمان فدنا هو جارها وعنو وضعنا يسمع يالبن كان تشرنا من الشرف إذا جارا فقط أنا من أي شرف واحد الثلاثي في قرشي إذا رح كفلين ولا يسانا وعيدك أما ورا وحنا نهايون بكيل لبريو هوشا وإذا كان يرى إذا كواب فدا سندا ما نقول عربنا إن أحد تقول وايد هاي وحسينا لا يبين أنك وحيد ويدين فلتى أنا وصور وريني يوان صور يتعاطي ميتي إذا بدي بالفريق يكون هوارك يشعبي يعيرك يتحدث إن هذا تقولم دام يتعاطي hoggaanka gaashaandhigga ee jawxo naftii hore Sheekh Deeq waxa uu ka hadlay marxaladihii kala duwanaa ee ay soo mareen wada hadalladii u dhaxeeyay jabhadda wadaniga xoreynta Ogaadeniya iyo xukuumadda gumaysiga Itoobiya iyo waliba sidoo kale wada hadalladii u dambeeyay ee magaalada Nairobi ku dhex maray jabhadda wadaniga xoreynta Ogaadeniya iyo maamulka gumaysiga Itoobiya kaasi oo uu sheegay inay jabhaddu go'aan geesinimo leh ka qaadatay hoggaanka gaashaandhiggu waxa uu ka hadlay mowqifka shacabka reer Ogaadeniya ee ku sugan gudaha wadanka Ogaadeniya waxaana uu sheegay in shacabku ay ugu
hanjabeen jabhadda in aanay qaadan karin wax ka yar madax banaanida waddanka Ogaadeniya iyo in shacabku ay ka tashadaan aayahooda isagoo arrimahaasi ka hadlayana waxa uu yiri hoggaanku waxaa xusub mudan waxyaabooyin badan bay noorinayeen aan wada hadallo hadda 95 magaalada Qadar baan isku aragnay waxba uu ka socon kari waayay kadib haddana agagaarka gobolka Saraxay baan markaas ku arkaa soo aragnay waxba uu ka socon kari waayay haddana waqti dhaxoolayaal bay soo direen wax garab oo adinku la socoteen oo Abdurrahman Duulani iyo laakiin Cabdi iyo maartay Suudaan Fawsi iyo soo direen hadda mid kamid ah uu tajab ku sheegay kana qaar Ilaahay oo talay ayada waxay naga ahaayeen aragno marxay bayna intaan waahid oo marnayna weeyaan diiday isku sawirori awal rabada waxay ahayd jeesoodkiisan soo aragno in waxa ka socon waayay waxay noqotay isku aragno meel kale muran iyo khadad badan kadib waynu isku aragnay haddana go'aankii shirkadda qaadatay gudaha Ogaadeniya shacabka iyo ciidamada si weyn u soo dhaweeyeen ciidamada jabhadda iyo xubnaha jabhadda gudaha iyo shacabka waxaan anaga loogu hanjabay dadkii guruhu ay noogu hanjabeen hadda dastuurka Itoobiya qaadataan shacabka Ogaadeniya aan nahay dhibaato badan baa shacabkan gaadhay oo markay dagaalka ku jiray dib ka dhacaa dad badan baa dagaalka iyo soo geliyeen oo iyagana gacantooda la soo baxay oo waxaan la dilayay ama hawaarinta ama dalkoodiga ama sawaaqinta iyo ka shacabkeeda oo la sheegay ku dhimanaya dhammaan Ogaadeniya waddankeena ku soo jeedeen oo Soomaaliyeed bay ahayd marka waxaan loogu hanjabay haddii aan dastuurka ogolaano oo iska daadiyay dadka oo nooc walba oo ama taasoo ahaado ama hawaarin ha ahaado ama dalkood ha ahaado ama naftuura ha ahaado ama shacab ha ahaado iska daadiyay goobiyo ilaa ka magdhabayna anaga loogu hanjabay baaqada raashinka walaatankii sana shacabku bixinay nin walbana wala ragna feera ka tirsanay farna ka xisaabtan aad baa loo soo dhaweeyay waxaa jiray xilligii hore in soo dagaalamay oo 64 halkii uu hakaday 77 uu hakaday haddana dadku waxay maqlayeen Bashir Cabdi Xasan Buraale oo gudoomiye oo la tahay haddana iyaga jooga haddana waxaa la maqlayay Khadar Macallin iyo Reerkiyo oo la tahay jooga haddana waxaa la maqlayay Salaadiin oo la tahay jooga Ibrahim Beero oo dawladda sheegan baa jooga marka dadku beesha caalamku waxay loo qiimeeyay garan lahayd laakiin go'aankan markuu soo baxay waxaa la ogaaday ururka kaliya ee qabta oo laban hadafkeeda xambaarsan go'aaminna qaraayaha ummadda aad baa marka arrinta ayada ay beesha caalamku soo jiiday idinkuna taweel baa ka tihiin aad iyo aad u mahadsantihiin odayaashii wax garabta mar labaad salaamaya haddaba aan soo aruurinay khudbad qiimo badan iyo warbixin waafiya oo dhinacyo badan taabanaysa kadib waxaa shirku uu hoggaanka gaashaandhigga weydiiyey su'aalo dhinacyo badan leh kuwaasi oo ay ka qaybgalayaashu doonayeen in ay ka qancaan mid ka mid ah ka qaybgalayaasha ayaa waxa uu hoggaanka gaashaandhigga wax ka weydiiyey arrimaha ciidamada waxaana su'aashiisii ay ahayd sida tan su'aashan gudoomiye ku weydiinaya waxay tahay hadda waxaan maqlaynaa in ciidanka gudaha aad ka warramaysay waxaana leeyahay ciidanka guduhu hadda aad uma taransana marka xaaladda uu nooga waran markaan ku leeyahay uma taransana macnaha aad uma badna baa la leeyahay waa mahadsan tahay ciidanka guduhu tafahaan waa ciidan xooggiya qaabka u dagaalamana waa qaab qorshaysan maadaama inagu aynu gacanta ku hayno dagaalkan inagoo ku xisaabtamayna hadda duruufta iyadoo ku xisaabtamayna goobta cadowga in laga gelayay ku dhex jiro oo shacabkeena gudihiisa ka dareerayo walba markii loo eegay dagaalku waa dagaal habaysan in badan baana siday loo qorsheynay u qabsoomaa laakiin inta badan cadowga siduu u qorsheeyay oo ma dhaca dagaalkoodu fiktihaanan u dagaalamahay intaas ciidankeenu yahay laakiin ciidan lagu fahamtami karo oo awood leh oo welibana aan ku cadeeye aada isu kaydinaya waayo wuxuu cadowgu yahay baan ogaanay waxaynu inagu dheeraran ama dariskeenoo habaan ognahay xilliga dagaalku qaadanaya laga ila ogin ku dhammaanay laakiin haddana aan garanayna inuu socon karo si haraysan oo kolkaan doonana aynu burburin iyo weerar xoog la qaadi karno markaan doonana aanu si kooban aan u diriri karno wey marka ciidankeenu awood u leeyahay xooggiisiina uu jooga waa maasan haddaba waxaadna leedahay ciidanku gadaal uu ka soo tarmaya wuu soo badanayaa aad bay u fiicnaan lahayd inaad aragtaan
kuwa yaryaroo dhalinyaroo qarloo kusoo kordhaya kuwa cadowgii nooga imanayo shalaysay dagaalka dhanka kaga jireen noo imanayo hayda ciidan soo diirayo oo si fiican u qabayo guulaysta guul iyo gobonimo dhegaystayaal waxaan weli bartamaha kaga jirnaa su'aalihii ay ka soo qaybgalayaasha shirku weydiinayeen hoggaanka gaashaandhigga ee jowxo naftii hure sheekh deeqe oday ka mid ah odayaashii shirka goobjooga ka ahaa ayaa waxa uu weydiiyey hoggaanka gaashaandhigga su'aal ahayd howlgallada ciidamada waxaana uu u dhigay su'aashiisii sida tan naftii hore waxaan rabay inaan wax ka yar weydiiyo xagga gudaha ciidamada ka aloosan ma la samayn karaa qaabeeshin ka duwan qaabeeshinka kale oo la isku dayayo in magaalooyinka waaweyn gudahooda habeenkii mir lagu qaado weerar ah waa mahadsan tahay hadda mirkii waa joogta iyadu waa mid iyo sideedaba u socotaba hadda warama hayo inay soo gaaraan wararkaasi inkastoo isleeyahay wariyaha xagga saxaafadda waynu ku fiican nahay oo reediyo xubiya iyo websiteedyada waynu leenahay wuu jiraa mirkii waa iska joogto hataa arrimaheen oo ku xisaabtamayna iyo qaab dagaaleedka oo inaga maray iyo kaydin badan baa jirte inagula cusub xilliga xaaliga meel kamida intaan qardam ka siinay inaan midahayn taliska nacabka ah ee gumaysiga Ethiopia waxa uu faafiyaa been iyo dacaayado raqiis ah oo aan sal iyo raad toona lahayn kuwaasi oo uu ku sheegayo in waxa dagaalamaya ay yihiin ciidamada jabhadda wadaniga xoreynta Ogaadeniya iyo maleeshiyada uu ka dhex samaystay shacabka Ogaadeniya haddaba mid kamid ah ka soo qaybgalayaasha shirka ayaa waxa uu hoggaanka gaashaandhigga weydiiyey su'aalo ku taxalluqda arrimahaasi waxaana uu u dhigay su'aashiisa sida tan sheekh deeqo salaam ku hore su'aasha ku weydiinayo waxay tahay kulli waddanka inta kastoo aan joogin warar badan oo ku tilkuteen oo abaan la soo gaaraya waxa la leeyahay ciidamada Ethiopianka iyo isma arkaan ururku waxa dagaalamaya waa dad labadii dhinac oo boolis iyo dabaqood iyo wax saasa iyo jabhada weeye waxa dagaalamaya la soo gaaraysa arintaasu waxa ka jira macnaheedu inaad yar loo faahfaahayso su'aal wanaagsan weeye xaaji waa ku mahadsan tahay horta ma harin karaan mana harsadaan ciidanka wayaanuhu dagaalkuna iyagu ku socdaa dadkana iyagaa diray iyaga qalabna u dhiibay tababarayna haddayba tababaray aan badnayn hadday qabaan ma diidayno meeshana kama saarayno qaar iyaga kamida inay dagaalka ku dhimanayaan soona galaan balse waa midaan sariya raad soona lahayn inaynaan la dirin ciidanka militariga ciidanka militariga baynu la dirnaynaa baabuurtoodii baynu gubaynaa iyagii baan dilaynaa iyaguna kamid weeye laakiin waxaa la oran karaa sidii kolkii hore ay keligoodu ahaayeen nimankii gaagaama ee wayaanuhu sidii keli ooma ahee waxay ku sugeysteen in kaloo xoojiso oo dhulkana oqoon u leh dagaalkan ka dardardariri karay yay sameeyeen haddii la yidhaahdo kama saarayna meesha taasina way daciifeen oo iyaga laftooda say gacantii ugu dhacaysay hadda yay naafteen tan kale isku tiri ah hadee cadowga dhaqankiisa weerero dee wuxuu hawsha u sameynaya sidaa weerero arrin habboon ma aha balse haddii uu cadowgii uu af soomaali kasaba ku hadlo ehelkeeni ha ahaada markuu cadowgii yahay wuxuu dilina shacab yahay wuxuu dilina mashhuuro yahay wuxuu duulimaadka ku yahayna de innaga gobonnimadeena iyo badnimadeena uu yahay kitaabka innaga nooguma jiro inuu kani innagayna yahay hadda Ethiopia waa karmo oo qaar baa axmaaro oo qaar baa oromo oo qaar baa reer koonfureed oo marka karmidii Ethiopiaanka uu kamid yahay wax gaar ah oo hadda kuwani ay nooguma yihiin ma ay jiraan marka laga qeybo deeynaya kolka qaarkood adoonta isku dhex darman karta oo kii guriga ka shiiday iyo kii kale ka baxsiyey waa mahadsan tahay dhegeystayaasha qiimaha iyo qadarinta mudana waxaan gebi ahaanba intaasi ku soo afjaraynaa barnaamijkeena ee xiisaha badnaa ee aanu idinka diyaarinay shirkii ay jaaliyadda South Africa ee Soomaalida Ogaadeniya ku qabatay waddankaasi South Africa una khadka teleefanka kaga qayb galay hoggaanka gaashaandhigga ee jowxo naftii hure Sheekh Deeq Maxamed tan iyo inta aynu barnaamijkan mid la mid ah ku kulmayno waa aniga ah jaamac dheer iyo guud ahaanba bahda reeyo xurriyo oo isku duuban oo idin leh fi amaanillah وندانا ليمين وحيوانا يا ولد الزبيدي ويلين تلقيقا وقو